السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمط Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan aad baan idin salaamayaa. Wallahi ma aqaan caawa sidaan ahay sidoo dareenkaygu yahay. Dhab ahaantii aad baan u jaraynayaa. Wiilkan walaalkay hortiina fadhiyo. Caawa waqti yar waa markii ugu horeysay aan is aragnay asaga. Magaaladan ayuu wuxuu ku ahaa in badan dhibane aad iyo aad u xanuun dhibana aad iyo aad u weyn waliba xanuunka aad u jeedaan ee wajigiisa saaran ka muuqdo wajigiisa ayuu aad ula tacaalaya deetana waqti yar ayaan wada qaadanay dhab ahaantii xanuunka uu ka sheeganayo nabarkan aad u weyn leh ee daankiisa ku yaala wallahi billahi ta'ala alcadiim ma aqaan xaaladeeda macnaha waxaan idinkugu soo gudbiyo aniga maalmaha dhan YouTube iyo baraha bulshadaba dhankan YouTube waan ka yara maqnaa walaalkay toos iguma soo xiriirin laakiin shakhsiyaadka magaaladan ugu waaweyn ayaa garab ugu siiyay inaan aniga asaga wada kulanno in badan oo raadinaya la ii sheegay sidoo kale walaalkay wuxuu dareemayaa xanuun aad iyo aad u fara badan waxaa la leeyahay xidid ayaa wuxuu ka go'ay dhankan iyo maskaxda xididka dhankooda soo gala deetana gudihii ayuu dhiig ku firdhinayaa waxaa kaloo jirto in dhiiggaas meeshaan bararsan aad u jeedaan waxaa fadhiyo dhiig aad iyo aad u fara badan maadaama xidid go'an yahay shakhsigan dee qofkii arkaa oo markaasi la jooga ama is ag fadhiyaan ayaa wuxuu dareemi karaa walaalkay xanuunka faraha badan leh uu dareemayo wallaahi waan hadli waaye muddo saacadaha waan hadli waaye waxaan aad iyo aad uga xumaay horta xanuunka walaalkay haysto ilaahay caafimaad ha siiyo wala soo dhow walaalayaal Soomaaliyeed meel kasta joogo waxaan ka codsanayaa walaalayaal ujeedin waa dhibanahay xidida meesha qarxay marka waxaan ku dhibaataysanahay Istanbul Turkiga walaalkay maanta aan u imaaday Liibaan soo maartay bulshada Soomaaliyeed iyo tuso dhibaatada ay haysto maartay meeshaan xidida waa baq walaalayaal anta salaada markaa tukanaay ma foorarso karo ilaahay kuma darnaa sujuudda iyo salaada inta waa dhibaysaa habeenkii markaa seexdo inta badan waa soo kacaa walaalayaal dhibaato aad iyo aad u weyn maartay xagga iga haysto meeshaan xidida maartay qarxay maskaxdan waa u dhow yahay walaalayaal Soomaaliyeed inta damiir leh wax ka codsanaa maartay haddii fiidiyowga arkaan inay maartay waxaan dareemayo ila dareemaan dhibaatadii haysto wallahi hadalka hata maartay aad iyo aad maartay dhibaa furuurta u jeedaan bararta aad u barar tahay cuntada aad afka ma geli karo rooti ma cuni karo cuntada ma cuni karo dhib weyn qabaa mishaari iyo maartay boorsh ina cuno labaantii oo jeedin wuxuu wadi waayay fiidiyowgii dhan wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay nolol waxaan u baahanahay waqti wuxuu ku jiraa waliba waqtigii ugu habboonaa maanta qof dhalinyaro ah ee naftiisa wax u qaban lahaa wuxuu jiraa 22 sano waa waqtigii ugu quruxda badnaa qof dhalinyaro ah oo ku jira lahaa waqtigii uu shaqaysan lahaa waqtigii uu nolol samaysan lahaa waa qof mustaqbal u baahan waa qof u baahan nolol aad iyo aad u qurux badan oo asaagiisa uu la meermaro wallahi ma aqaan sababtaan mar walba waxaan arkaa qof walaalkay ah ama walaashay ah oo aad iyo aad u dhiban ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wiilkan walaalkay ah ee u baahan mustaqbal ee u baahan nolol aad u qurux badan aad u xanuunsan yahay waliba xanuun aan marnaba laga sheekeyn karin waxaan idinka codsanayaa walaalkay inaad soo caawisaan waxaa la geeyay isbitaallo aad u fara badan oo Istanbul ku yaala ama Ankarana ku yaala isbitaalka ugu yar waxaa la leeyahay waxaa khaliin lagu sameynayaa xanuunkiisa lacag gaaraysa $30,000 laakiin $30,000 tirada afkayga ka soo baxayso way weyn tahay laakiin waxaa hubaa haddii aan wada caawino oo aan u soo jeesano wiilkan walaalkay ah inaan 30,000 iyo ka badanba aan soo gelin karno waayo haddii aad wax sadaqaysatid wax yar ba Allah ka dhigay waa wax badanayo wax aakhiradaadana u dambeyn doono walaalkay magacaaga Maxamed Cabdirasaaq Cabdi waa wiil daayar oo dhalinyaro ah Soomaaliyeed waa wiil walaalkeena
familkiisa way awoodi waayeen in lacag intaas la eg ay bixiyaan. waxaan aad iyo aad uga xumahay xanuunkan faraha badan leh walaalkay uu dareemayo. waxaa dareemi kara qofkii markaasi agtiisa joogo ama familkiisaba ahba. waxaa idinka codsanayaa insha allah janalkan wuxuu ahaa janal mar walba farxadda wixii farxad idin gelinaya idinkugu soo gudbay ma aanan jeclayn, laakiin waxaad igu taqaaneen inaan dadka masaakiinta caawiyo idiin soo gudbiyo. waayo waxaa jiro walaalo jecel inay wax sadaqaystaan ay wax dhiibtaan. waxaa xasuustaa dad fara badan halkan aan soo dhigay in aad aad u caawiseen, hadeertaana nolol aad u qurux badan ay ku wada nool yihiin dhammaantood. wiilkan walaalkay ahna waad u jeediin xanuunka faraha badan leh uu dareemayo iyo daankiisiiba sidoo noqday. ishiina hadda anaa u jeedaba dhiigaa ku soo furmaya. waxay idinka codsanayaa dhammaantiinba sida ugu dhaqsiyaha badan inaad ku soo caawisaan dal iyo dibad meel walba aad joogtaan. in walaalkay laga warhaayo lambarkiisa ay ii soo qori doonaa hadduu aab idmo. sidoo kalena haddii jiraan wax akoon ah ma leedaha akoon lambarka whatsappka igu soo weli karaa. wax walbo markaas asaga dhankiisa aad uga baahantiin ama aad ku caawin kartaan lambarkiisana waa idiin soo raacinaya ugu soo dira. sidoo kale waxaa la hadlayaa jaaliyadaha halkan jooga ee soomaalida ah ee faraha badan in ayagana ajarka shaqaystaan iyo ganacsatada magaaladan joogta inay u soo gurmadaan wiilkan walaalkaya ee dhibanaha ah ee Soomaaliyeed. waa cadkeennii, waa jirkeennii, waa wiilkeennii. meelaan ugu tagna ma lahan. dhallinyaradii qaarkood waad ogeydeen dee waddankeena oo lagu baaba'aya. halkeenna mid maanta aan caawin karno aan wax u qaban karno inaan dhibka ku fiirsanno ma aha. wallaahi awoodi waayo inuu mikrofonka uu sii haysto, waayo ma rabo inaan ka ilmaysiiyo hadda. tani caawo dhan agteeda ku qayroonaya isla wada oonaynay. ooyin wax ma tarto, ooyintu wax ma tarto, laakiin waxaa wax tara waa ducada iyo waxtarka dadkeen. waxaan hubaa oo aan ku kalsoonahay 100% inaad soo wada caawin doontaan dal iyo dibad meel walba aad joogtaan. wiilkan waa qof aad iyo aad xanuun u dareemayo, ma seexdo oo ma hurdo. qof bilaadan oo hurdadii ka duusha aanan seexan karin xanuun dartiis. haddana aan idiin soo bandhigay, ilaahay marqaatina wuu ka yahay, waa idiin soo bandhigay ummadda jecel inay wax sadaqaystaan. qofkii maanta wax ilaahay u dhiibay ee hanti faraha badan leh ee fiidiyowga arki doona, waxaan leeyahay walaal ajar shaqayso. qofka maanta aad farxaddiisa ka talisaa oo wax adiga kuu dambeyn doono, sadaqa aad baxsataan oo wax aakhiradaada u dambeyn doono. waxaan leeyahay walaalkay soo wada caawiyo Soomaaliyeed meel kasta dunida aad ka joogtaan. janalkan in badan wax ku caawinay dad badan. lacag 30,000 waa yar tahay ka badan dad ayaana laga soo weydiiyey oo aan ka bixinay. waxaan leeyahay walaalkiina farxaddiisa ka taliya. waxaan rajeynayaa hadduu aab idmo fiidiyowga xiga ee aragiisa, waxaan rajeynayaa isagoo qallinkii lagu sameeyey inaan dib idinkugu soo celin doono marka aan safarka ka soo laabto hadduu aab idmo. waxaan idinkaga tegaynaa insha allah. wax hadana ma ku haray walaalaha Soomaaliyeed waxaa walaalkiina wiilkiina wax qof maartay dhalinyaro hadda mustaqbal rajeynaya, mustaqbal fiican. dadka maantana farxadeeda waxa weeye ilaahay kasoo gacmiina ku jirtaa inay iga farxisaan. gacmiina ku jirtaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaan. marka waxaan rajeynayaa inay iga farxi doontaan, garab istaagi doontaan, inay la qiiro doontaan. waxaan rajeynayaa qof kasta oo muuqaalka hadduu arkay maartay in waxaan dareemayo la dareemi doono. walaalkeen liibaan waxaan rajeynayaa maartay in ilaahay ka abaalmariyo intuu dadka Soomaaliyeed soo bandhigay. intaasaa maartay hadalku soo kooban. waa mahadsantiin.